barnaamijkeennii kaftankii kululaa iyo kabaysla jiidhkii toddobaadkana waxaan idhi ayixii arlada meeraya ee dunida maasheeyey ee madfac iyo rasaas iyo hub weyn lagala meel waayey ee midhaha boobayay ee maalka qixinayay niman baaba muudsaday sidii malabkii ciideede macnihiisa qoomka yaqaaniga macaashroon waa mid iga su'aale waxaan hadal ku soo meershay macaan iyo sideed uga hesheen duxiya miideeda mijimaha sideed uga gurteen madaxii kuusnaa maqaarkana sideed uga dhigteen malaha waayaabe maxaa hadhay maxaad haabateen meeshu waa eber mashruuciyada huuhaada ee raggu ku suuq geysto ayay Soomaalidu aad ugu dhaga fududahay samaan iyo xumaanba waxayna soo maray mashruuciyo hore oo tiro badan oo Soomaalidu ku yaacaya mashruuci dabacadeeyaha qabashadiisa diinka suuq geyntiisa darmuusyada jabintooda qofkii qarax soo sheega 100,000 baa la siinayo dhoof waa mashaariicda iska huuhaada hilibkii dhurwaaga waxaasoo dhan waa mashaariic ay rag suuqa geystaan mashruucana markii la rabo inuu fulo xagga dumarka iyo carruurta laga soo geli saaxiibkaya ayaa xaaskiisa waxay soo gaday 2 kiilo hilib dhurwaa habeenkii bay kariso markaas hilibka waraabaha cun ku soo dhawow dumarka waxa loogu sheekeeyay ninkii hilib waraaba cuno wuxuu noqonayaa nin soo majeesta oo dagaalyahan habeenkii oo korso waxay tiri kaale hilibkan ku soo dhawow waa hilib waraabe hadda in bay farxadeenu inoo bilaabanaysa markaas aan saliiliyooday buu dib u faagtay waxay tiri ama hilibkan ruuxga cun ama nin rago hilib dhurwaa cunay ayaan doonanayaa fasax markaas waxaan sameeyay garan waan madaxa meermeeriyay markaan goostay baan aad u jiray racyooday buu markaas aan idhi saliiliyooday xalay miyaan hilib dhurwaa goostay sidii weerkii gaabana miyaan adhiga leyn gaadhay saqda dhexe leelkii miyaan bowdka kala booday la tagiyay dabadeed anoo xanani jeexjeexay waxaraha miyaan cunay intaan hilib ku dhaylaastay waa mashaariic oo furan haddana waxa laga yaabaa in aragtaa qaar la hilibka doofaarku waa la cuni karaayo culimeentay u geystaan adaruraatu tubixul maxduuraat baa la yiraahdaa way odhanoo dhiikarka iyo sonkortu daawo yahay markaasaad maalin arki doontaan kuwa doofaarka qalanaya waa manfudaydka iyo wax ka fiirsi la'aanta caqligaaga in uu qof kale oo kula caqlihi ka ganacsado hadba dhinacu kale rabo ku dhigo waxay ka turjumaysaa in aadan adigu wali wax isweydiinin waa barnaamijkeennii kaftankii kululaa iyo kabaysla jiidhkii iyo bisla maxamed sheekh aad baan idin salaamayaa ha noolaato Soomaalidu